بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دوو ويل ميديا هدي اي تهي مركي كوو هوريسي هاد سو بوقتو كانال كينا سبسكرايب نو سار جنباليل كفرو سي ادو سوعتو عشرة حنا ان سو قلين دونو عشر كين واحد كسابسن يهي topic about mother وموضوع كسابسن هو يدا topic about mother موضوع كسابسن هو يدا First, marka hore, I am very pleased aad baan ugu faraxsanahay to talk about inaan ka hadlo mothers hooyooyinka. But laakiinse before I start my topic intaanan bilaabin mawduucayga I would like waxaan jeclaan lahaa to send inaan u diro a warm greeting salaan diiran to the dear mothers hooyooyinka qaaliga which came from taasoo ka timaaday the most expensive parts of my body meelaha ugu qaalisan jirkayga. Second, mar labaad, mother's duty waajibka hooyadu is uncountable waa mid aan la soo koobi karin from the day maalinkii she got pregnant ay noqotay xaamilo up to day ilaa iyo maanta. During her pregnancy intay hooyadu ku guda jirtay xaamilada she suffered so much aad bay u dhibaatootay. She carried us in her womb waxay nagu qaaday ilmagaleenkeeda around 9 months 9 bilood. After kadib she has delivered us wayna umushay. Then kadibna she breastfed us wayna naas nuujisay for months and years bilo iyo sanado. Also sidoo kale carried us waxay nagu qaaday hooyadu on her back dhabarkeeda. At that time waqtiga she didn't sleep may saaxanin hooyadu because of maxaa yeelay she carrying us inagayna ilaalinaysay. She fed us wayna naas nuujinaysay and sang waanay noo heesisay hooyadu. She made us laugh waynaga qoslinaysay and raised up waanayna qaadqaadi jirtay hooyadu. She washed waxay meedhi jirtay hooyadu our dirty clothes dharkiina uskaga every hour saacad kasta and minute iyo daqiiqad kasta. Finally ugu dambeyntii I can't count kuma soo koobi karayo writing qoraal the reward abaalmarinta for dear mothers hooyooyinka qaaliga. So sidaa daraaddeed we must keep waa inaan ilaalinaa for dear mothers hooyooyinkeena qaaliga. Umaasan tahay daawashada iyo dhageysiga fiidiyogan. Haddii fiidiyow ku cajabiyay like noo saar, dhiirigelin bay noo tahay.